Shane McMahon out on the apron. There goes Owens. daawade tani waa ciyaar aad u xiiso badan oo markaa ay ku taxan yihiin daawadayaal badan. ciyaartan ma aha ciyaar markaasi sida dhabta ah la isku fayro, laakiin waa ciyaaryahanada markaa garoonka soo galaya ay ku heshiiyeen inay lacag ku helaan. waa sida ruwaayadii oo kale ciyaartan. xataa waxaa la ogyahay marka garoonka ciyaarta inta aysan soo gelin ka hor cidda markaasi guulaysanayso. adiga hadda ciyaartan daawanaya waxaad aragtaa in qof lug lagu dhufanayo, midna uu dhacayo. ciyaarta markaad fiiriso waxay kula muuqataa mid xaqiiqdii dhab ah, laakiin annagoo ah Caption Channel waxaa maanta soo bandhigi doonaa ciyaartan inay tahay mid bug ah ama mid fake ah, oo markaasi ciyaartan aysan ahayn mid si dhab ah xaqiiqdii loo jilo aysan ahayn. waxaad kaga bogan doontaa barnaamijka, ayaad kaga bogan doontaa Caption Channel ayaad naga daawanaysaan. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my waxaa kuu muuqda Undertaker oo darbe xawli ah wejiga kaga dhufanaya John Cena. laakiin midda dhabta asaasi ma ahan. waa kan markuu sidaa u soo kaco lugta ayuu soo qaadayaa, wuu u dhaweynayaa oo keliya bis, asna waa istuuraya. si fiican u fiirso. qaybtan kale la soco, waa sidii oo kale, waa fake waxa ujeedid. waa kana iyadoo markaa ku cadeysan. xariga ayuu qabanayaa, markuu sidii ku dhaco wuxuu isku diyaarinaya inuu isku kala tuuro, dushiisa inuu ku dhacayo isku diyaarinayaa. markuu isgamana isaga ayaaba gacmaha usii horumarinaya. waa kaadii tartiib dhulka u dhigaya saa ujeedid. kani waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu caansan ee ciyaartan ciyaara. magaciisuna waxaa la yidhaahdaa Randy Orton. wuxuu ku caanbaxay afaarta loo yaqaano RKO oo ciyaaryahanada markuu ku qabto uu ka badanayo. waa ka ku muuqata marka hore lug ayaa lagu soo gemayaa, wuu u banaynayaa, kadib kor ayuu la aadayaa asigoo RKO ku qabanayo. dhulka markuu isku tuuray waa ka asiga keliya ku dhacay. midkaas waa matalaya maan waxba ma gaaray. si fiican u fiirso. qaybtan ila fiiri, waa qaybta ugu layaabka badan. fiiri wuxuu suubinayaa. waxaad u qaadatay inay run tahay? maya, xaqiiqdii waa fake. si fiican u fiiri. markuu usoo dhawaado uu rabo inuu isku soo kala tuuro, goor hore uu sii baraynayaa, dhulku ku dhufanaya, asna isbootinaya. ciyaaryahanka astaantiisa ay ku cambaxday yes Daniel Bryan. fiiri feegtiisa ila fiiri. markaad daawanayso xaqiiqda waxaad loo maleeyaa inay tahay mid dhab ah, laakiin run ahaantii midani mid dhab ah ma aha, waa fake, waa bug. si fiican u fiiri. waryaha ciyaartan soo tabanaya wuxuu matalayaa inay tahay ciyaarta mid dhab ah, isla markaana
wuxuu iska dhigayaa asna ciyaarta inay si rasmi ah isku dilay. Waatan midda dhabta ciyaaryahanka ku canbaxa astaanta yes markuu is soo qaado oo inuu darbada ku dhufto waa ka midka kale goor hore isii diyaarinaya marka dhulka ayuu isku dhufanaya. Ma u qaadanaysa inay markaasi ay tahay mid fake ah. xaqiiqda waxaad u malaynaysaa inay dhab tahay laakiin dhab ma ahan. si fiican u indhe waa ka waa kan Undertaker wuxuu matalayaa in ciyaaryahankii siisa markuu saarsado lugihii kor uu aadiyo qoorta inuu bash ka siinayo. tan xaqiiqda ayaan ku tusayaa ila soco. waa kan haatan wuxuu isku diyaarinayaa inuu qoorta ka jabshiyo. wuxuu suubinayaa si fiican u fiiri labada jilba ayuu dhulka dhigayaa madaxiisna dhulka ma gaarsinayo. labadiis jilba ayuu dhulka si fiican ugu qabanayaa. check waa kaas madaxan dhulka ma gaarsinayo. daawadayaasheena qiimaha mudan mar kale janalkeena kusoo dhawaada si aad u hesho barnaamijkan kiisa xiga. fadlan ha ka baqiilin janalka inaad taawato calaamada la yiraahdo subscribe meesha ku qabo arka dhabdhe gambalaalkana madaxa ka taawo. waxaa kusoo gaari doona isla markii barnaamijkan soo dhigno si toos ayuu kuu soo gaari doonaa. waana mahadsantahay.